السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا والسلام يا دمانتين أنتنا ماشي كسوق بشيء مركا يوين به يعني بنيمو يعني والسلام يا مركا حالته إنه كود هذا اللي الرنتان مركا وحن دورني أبرنين يعني دورني هيبة أحمد عبد الرحمن يا مرسل afartaasan markaa ku dooranay inay soo diyaariyaan barnaamijyo iyo qodobo qodobka koowaad wuxuu ahaa haybe oo ka warrama taariikhda maani taariikhdii ilaa Seylac ilaa Gadabuursi ilaa iyo magaranaysa xidhiidhkeenid waqtigii intuu jirayba markaa sidaas loo kala qaatay oo qof kasta u qaatay marka inteena hadhayna hadhowto insha Allah waan ku hadli doonaa wixii aaraaya inakoo dhageysanayna iyaka oo hadalkooda aan kala soo dhaxbaxayno nuxurka marka waxaan ku bilaabayaa gudoomiyaha ugu horeeya Mas'uud Abdiraxmaan ka horeeya isaga ugu horeeyay marka cidii lagu horeeyayba marka gudoomiyaha ku horeeyay marka ku soo dhaw gudoomiye waxaan u maleynayaa malaha ana xagga wadaadnimada ugu yar baan u maleynayaa dhalinyarta la jira quraanka akhriya مركا بسم الله أنا أخريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعلمون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم maanta waxaan joognaa Danhaag taariikhduna waxa weeyaan 22 bishii koobaad ee sanadka 2024 horta Ilaahay mahadi inaan maanta halkan nabadkooda joogno marka hore horta waad mahadsantiin dhamaantiin sidaad uga soo xaadirteen xuduurkan insha Allah aan kaga hadlayno danaheena iyo mustaqbalkeena iyo aan ku muujinayno shucuurteena maanta waxyaalaha ina haysta ee dhulkeena ku soo cusboonaaday ee inagu soo cusboonaaday nafteeni ee gobolkeeni iyo geyiga Soomaaliyeeba ku soo cusboonaaday maanta inaan ka hadalno oo wax iska weydiino aad baan ugu qasbanahay waxaan ka hadlayaa taariikhda Seylac intaan ka xasuusto iyo taariikhda Seylac waa laba qaybood baan u xusi doonaa mid waa dhulkii iyo magaaladii iyo taariikhda ilaahan jirtay midna waa dadkii xukumi jiray iyo ummadii ku dhaqnayd meesha labadaas aan kala qaadaya kulli ku dheeraan maayo way waqti bay u baahan tahay intiina badan waad ka dharagsatiin laakiin xasuusin bay u baahan tahay waxay fayna dhikr tanfacu almu'miniin yani qofka waa xasuusintu waxay u taraysaa meel walba taariikhda way ku jirtaa hadaan ka soo qaan ku bilaabo magaalada Seylac horta magaalada Seylac waa magaalo qadiima oo qadiimkeeda laga soo qaaday yani 6000 oo sanadood bay ka badan tahay jiritaanka 6000 oo sanadood inay jirto waa la hubaa laakiin way ka sii badan tahay leeyahay lama hayo qof taariikhyahana oo haday ay tahay Greegi iyo haday tahay maxay Rumeanigi iyo ragii wax ka qoray qof taariikhdeeda maalintaas la aas-aasay oo maalintaas magaaladaasi bilaabantay qof yiraahdo ilaa hadda lama hayo inta ummad baa soo xukumaysay magaaladu horta waxay dhacdaa meel u dhaxaysa cirifka waxa ka xigta dhinaca bariga waxa ka xigta Djibouti
dhinaca kalena waxa ka xigta badda waxa ka xigta badda casayd baa ka xigta dhinaca kalena waxa ka xigta Soomaaliya oo imika Somaliland qolada la yiraaho ama gobolka Awdal sidaasay Ethiopia ugu toosan tahay magaaladu hadda waxa la sheegaa magaalada Djibouti waxay u jirtaa Djibouti 120 km bay Djibouti u jirtaa masaafaan magaalada Herer waxay u jirtaa 320 km bay u jirtaa 320 km waad garanaysaa waa meel aad iskugu dhow yani marka la eego Duulaan iyo dhinac kasta 300 waa wax yar magaaladu waxay agteeda ah magaalada Lughaya la yiraahdo magaalada Lughaya juqraafiga waxa la yiraahdaa waxay ku toosan tahay amba ay badhaa magaalada Barbara iyo Lowyacade Barbara iyo Lowyacade bartankeeda tahay marka taariikhda hadda waxaan la calaamadeeyay ee lagu leeyahay Lughaya loo leeyahay Lughaya hadii la yimaado inta kale Barbara iyo ilaa iyo Djibouti gacanta lagu hayaa anaha waa halkan jooga labadeeda gacmood baan saan ugu kala qabanaya marka taasi horta waa juqraafiga siday ku taalo waxa kale hadda cadaatay inay meeshani ay u fiican tahay yani xagga badda iyo xagga bariga istiraatiijiyad aan cajiiba oo adduunyada kala meel ku oolin ya lagu sheegay waxa kale ku fiican tahay baa la leeyahay satellite-ka iyo isgaarsiinta meesha ugu fiican inay tahay yani geeska Afrika hadii laga sameyn lahaa dayax gacmeed meesha ugu haboon waa Saylac baa la leeyahay meeshaasi waxay soo martay taariikh badan waxa taariikhdii hore iyo tadambe waxaan ka soo qaadanaynaa inta islaamku yimiday islaamku waa meeshii ka horeysay sida la sheegay Makka intuunan islaamku ka tagin ee Madiina una tagin Makka joogay meeshii ugu horeysay ee adduunyada ka gashay geeska Afrika ka gashay taariikhdan waa la yaqaanaa wax la tafiray iyo wax cadeynteedina waa la hayaa waxa ugu weyn masaajidka la yiraahdo qiblateynka waa la garanayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam markii salaada lagu waajibiyay markii la soo diray ma risaalada ma ee markii salaada lagu waajibiyay salaadu iyo risaaladu way kala horeyso nabiga markii la soo diray muddaana salaada tukan laakiin kadib ba salaada la dheelmiyo Baytul Maqdis la mariyay waa kii samada loo dheelmiyay markaas salaada la faray salaada markii la faray waxay culimadu sheegaan 16 bilood baa loo jeesanayay Baytul Maqdis marka 16 ka bilood dhexdooda la dhisay masaajidka oo qibladii Baytul Maqdis bay u jeeday markii loo bedelay aayadaha quraanka Ilaahay ku soo dajiyay waxaan ku bedelay qibladii aad ka raadlahayd markii la yirina Ilaahay wuxuu u jeediyay markaana qibladii halkaas u jeeday ila wax caana oo la garanayo يعني dadku waxay sheegaan nimankii muhaajiriinta waxay ka soo degan Casmar iyo meel kale Casmar waxa laga yaabaa waqtiga inay jirinba marka sidaasay caan ku tahay diinta islaamkuna halkaas ka gashay markay sidaa noqotay waxay noqotay marka markas yaal waaweyn oo istiraatiijiyad oo islaam oo yani oo diiniya iyo halka ka asaasmay waxay meesha ku aad ugu caanahayd cilmiga dhaqaalaha iyo waxaan la yiraahdo thaqaafada amba waxa la yiraahdo hidaha iyo dhaqanka iyo meel ay caan bay ku ahayd meeshaasi markii islaamka waxa la sheegaa culimada la sheego ee ugu waaweyn ee diinta islaamka wax bayn ka bedesho waxa kamid ah Sheekh Ibrahim Saylici iyo ninka Cabdiraxmaan la yiraahdo Sheekh Ibrahim Saylici wuxuu isagu nin suufi ahaa oo baab suufi ahaa laakiin ninka kale nin caalim ahaa kutubtiisa halkan masaajidkan hadda sunni kitaab 3 majalladood oo qoraya ayaa yaala oo kutubtiisa yani kutubta waaweyn ee cilmiga la ihtimaado ay ku jirtaa marka Cabdiraxmaan Saylici baa la yiraahdaa maraakiis waaweyn baa marka laga furay meesha maraakiis waaweyn markii laga furay ay diinta halka biyo dhigtay bay de socotay ilaa Herer iyo intii kale iyo saa socotay marka halka markay marayso cadow bay yeelatay marka gaaladii baa marka isku soo baahaysatay oo damacday meeshaasi inay baabiiso waa wax ilaa hadda jooga marxalada badan bay soo martay marka dagaalo badan baa ka dhacay intaas oo imaam baa iskaga dambeeyay waxa u dambeeyay imaam guray waxa la wixii imaam ahaa wax yar mooyaane xabashida dishay yani xabashidu markasta oo islaamku xoog leeyahay waxba ma samayso laakiin marka islaamku daciif yahay
oo amba bariga dhexe amba meelaha bariga dhexana ay dagaal ka socdo sida iminka yuhuud oo kale markaas bay dagaal ku soo qaadaa magaalada Saylac mar kalena oo ay qaadana waxa weeyaan marka iyagu ay yaani meel xun la gaarsiiyo markaasina gaalada u soo helisa markaasay dagaal na soo qaadaa oo sida laga warqabo imaamiyadii iyo wixii dadkii laayay waxay Boortaqiis iyo dad kale iyo ummad kale markastaba waxa meesha ka dhaca saraac waxana ka socda oo ilaa maanta ishaya wax kala maaha aad moodaysaan kelmadda meel ku qor waxa weeyaan waa saraacul masjid wal kaniisa yani waa loolan ka dhaxeeya kaniisada iyo islaamkii baa isku haya lama rabo in badda soo gaaraan oo meeshaas la koolkooliyo aad ka loo ilaaliyo gaaladu ilaaliyeen Itoobiya ku taala inay badda timaado markasta sidaas uu marka islaamku iyo u horjooga imikana sidii uu noqonaysa insha Allah waxba ha ka baqina magaaladu waxa kale ku caanahayd baa mustariga ku xiran oo dhan ilaa Itoobiya iyaday halkaas ay wax ka soo degi jiray iyadana waxba laga qaadi jiray xoolaha laga qaadi jiray subaga ka iman jiray malab baa ka iman jiray xabag baa ka iman jirtay wax walba waxa khaliij al-arab loo dhoofin jiray iyadana halkaas laga qaadi jiray wax alla wax ashcaar ka soo degta waxa Itoobiya la geyn jiray sida imikaba baa loo geyn jiray bariga ma jirin wax kale awr baa lagu riri jiray 100 awr baa mar kaliya israaci jirtay 100 xagaas ka soo socon jiray waxa la safarkaasi dab ma qaadan jirin baa leeyahay waayo kii soo socday halku degay oo isna degi jiray markaas soo socon jireen taasi waa taayaan inagu dheerin hadalka arintii sida ahayd ee magaalada sida u camarnayd magaalooyinka kolkan ka hadlay Addis Ababa ma jirin Addis Ababa ragga xarabiga iga yaqaan ahmaarada garanaya shalay bay ahayd waxa la yiri waa magac kale ilaahan jirtay malaha Oroma laakiin Addis Ababa waa ubixi jadiidka wax saas ubixi cusba Djibouti shalay bay ahayd waan garanayo Djibouti Saylac bay ka farcantay waxa soo dhangeeska Afrika sidaas ay ahayd haddaan ka xasuusano dagaaladu halkii ay tageen dawaad xasuusatiino kafa iyo dhulkii xabashida la geeyay iyo waxyaalihii la baday iyo hilibkii qaydnaa iyo waxa iskaga sheekeynayno waa wax cad oo la yaqaano marka maantana raggii waxa sameyn jiray magaalada Saylac markaan taas waa siday ahayd laakiin dadka deganaa ayay ahaayeen dadka deganaa ummad badan baa deganay يعني marka 500 iyo 600 iyo 700 iyo 900 iyo 6000 iyo kulka laga hadlay Soomaali kulli way deganaydoon wada Soomaalidu kulli way yareed laakiin ummad kala jirtay laakiin waxa idin sheegaya oo la xaqiijiyay dadka maanta u badan ee meesha degan reer awda la yiraahdo hadaba degan uma ugu badnaa madaxdana iyaga boqortooyada iyaga waxa la wixii yimaadaba macaad la sameyn jiray boqorada waxa timiday ifaad iyo maxay ahayd adal يا كترين جري وحكى كترين جري عثمانيدي ugu dambeystii waa ki Ingiriisku yimiday dadkii Ingiriiska la saxeexday iyo wixii kula saxeexdeen iyo sida yahayd iyo taariikhdii oo qorana meel kasta way taalaayo dadka waxa sameeyeen dadka maanta halkan fadhiya ee gadabuursiga la yiraahdo bay ahaayeen sida dadkaasi maantana ugu badan yihiin meesha bay iyagu badnaayeen cid walbana way iyagu bay la dheel garan jirtay waxa la sheegaa gabadh Canfara iyo soo martay imaarooyinkii oo magaceeda la yiraahdo waxa la yiraahdaa gabadha nadiir diini baa la oran jiray muddo iyadna meesha xukum jirtay macnaha muddo qorkay xukum jirtay meesha waxa imika talanba hadii anigu aan Netherland ku noolahay oo aan dawladda Netherland waxa laga yaabaa imika ay yihiin burgarmeyster markaas waan ka noqon karaa imika Mareykanka dad Soomaaliya shalay taga ka noqon kara marka taasi macnaheedu ma aha in Canfari meesha ay u badnayd maaha markasta dadka u badnaa dadka gadabuursiga bay haayeen ilaa maanta sidii iyagu baa marka walaalayaal taariikhda haddaba meesha la daafacayo ee la doonayo maanta inaan daafacno ee maanta la doonayo in la dhalandooriyo horta waa taariikhda caynkaas waxa laga yaabaa inay dadka qaarkii is yiraahaan dhaqaalaha meesha laga doonaya wax kala laga sameeynaya wax dhaqaalo laga sameeynaya ma jirto waxa weeyaan waxa laga sameeyay maanta Itoobiya dhaqaalo uma baahan dikadna uma baahan Saylac waxay haystaa Djibouti waxay haystaa Barbara haystaa Baashi haystaa meel kasta wax kala soo degi karto laakiin meesha loo socday waxa weeyaan in la qabsado oo taariikhdii ilaa waqtiga 6000 soo jirtay in maanta la bedela la doonaya marka raali ka noqon mayno waxaasi waana kala dagaalamaynaa
waxaan kula dagaalamayna cid kasta oo xabashi wada iyo cid la socota iyo xabashiba waxaan diyaar u nahay inaan la dagaalano oo dhulkeenna ka daafacno Soomaalina saasaan ugu baaqaya anu baaqaya dadka maanta wada ujeedadoodu anigu waxay tahay ma garanayo waligeed taariikhda ma dhicin nin intuu gaal u yeedho waliba yani 6000 oo sano ku taabaya dhulkiisii inuu yiraahdo kaalayo gumayso wali taariikhda lagu mahay taariikhda islaamka marbay soo martaa la yiri waqtigii tartaarka يا وحلا نين نيكي إمام كهما هنا نيكي كحيجي نشيعو هابلي نكاسا يا إسلام كي شرقالي وسوق حي نيمان كي ترتار كها وشرقال كي اللي الأركتين اللورد جاي بريجي إسلام كسيد حلول لي نكاسا سمي نكاسا آخر كي محي كده بيسيين نيمان كي مركي ماشي قبصدين وحال السميي لبضع قعمود يلا بضع اللغون تيو لقى حدا جيد لقى سؤال على qoladii tartarka ka soo laalaysa waayo naf mal ninka dadkiisa saa u galay idin kala bari dhibaato kale oo inoo keenay baa leeyahay marka maanta ninka keenay xabashi hadduu isaga la daldali waayo oo xabashi ku xidhi weyda geed haday ilaahay kama yeelay haday dhacdaba ilmihiisa waa haysa inankiisa iyo caruurtiisa waa in la daldalo waayo xabashidu ama gumaysigu ama qofka doonaya dhulkaaga inuu qaato adu ka bilaabaya marka qofka ku faraxsan maanta inuu xabashi keeno oo dhulkeeni taariikhda ha sida uu sameeyo horta waa nin isagu isdilay oo suusayd isku sameeyay laakiin anagu waxaan doonaynaa inaan anagu daafacno isaga daafacno anagu isdaafacno Soomaali daafacno taariikhdeena inaan daafacno marka walaalayaal waxa kale aan u baaqo diraya culimadii waanan daahanay oo dadku waxay leeyihiin wadankii dhanaaye Netherland wali hada lagama hayo ilaa hadda وشركة نوجه الرجال مالينيا لكن بإذن الله كان كيكو بعد نقل مايو وانسي وضينا إلا أن مظاهرات وين عن كدقنا إن شاء الله إن شاء الله تعالى كل يتوحوي ولا بديه هي مكا هذا الكون قيبنا إن مكا وانسيني مكا عبد الرحمن برخات أو سوق هذا الدولة إن شاء الله تعالى سيدي الله هلا مدنمو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليلاد باردي السلام يا مركو هوري waxaan mahad koobaad siinaya ilaaha raxmaanka raxiimka ee inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna isugu keenay kulankan maanta qiimaha badan leh aynu kaga hadlayno qadiyada Soomaaliya oo dhan kaga dhawaajisay ee qof kasta oo Soomaaliya oo meel kasta joogaba oo maanta uga hadlayo qiimeyn gaarana siinaya taasoo ah in bad iyo dhul intaba ay maaratay dhawqeedu inagu soo noqnoqday in la bixiyay horta rag baa iga dambeyn doona Itoobiya yaqaan laakiin Itoobiya uu og yahay qofka kasta ilmaha yar iyo ilmaha weyn gabadha wiilka Itoobiya xumaanteeda qof kasta uu og yahay inaanay caaqiba soo wadin waayo dad badan bay oo waqti badan la soo dagaalamay baa jira markaynu kaga soo bilowno Axmed Guray Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku shahiiday inay ka ilaaliyaan geyga Soomaaliyeed especially haddaan soo qaadano NFD badda saylac oo in badan ku taamaysay intaaba ka hor joogay talaxumada maanta taalaana waa ta kaga dhawaajisay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtada haddaba ha ahaatee maxaa lagu difaaci karaa inagu maxaan haysanaa in wax ku difaaci karaa maanta hub olola iyo mid qarxa hadda uma diyaarsanin waxaynu u diyaarsanahay kaliya hubkeena maanta ku dagaalgalayna waa midnimada sideen ku heli karnaa daliishan leenahay ku noqon maayo oo Soomaaliya oo dhan baa maartay daceebta iskale inagu laakiin anagu darnaano haddaanu nahay dadka gobolada waqooyi ka soo jeeda ama awdal ka soo jeeda ama maartay halkan isugu yimiday waxa weeyaan waxa maqani halkay ku maqan yihiin su'aalaha inoo yeelo weeyaan waxaad ogtiin sheekada inoo taala nin baa maalin la kaftan wuxuu yiri war anagu war istilaaye idinku odayaashiina way iska daba hadlayaan marka su'aashan ugu jawaabi lahaa ilaa hadda wali ma hayo maxaan ugu jawaabaa uma jirto marka waxaynu u baahannahay midnimo sideen ku helnaa inagu sideen isku ogolaan karnaa maxay inagu filan deeqi karaa magada buursabayna deeqi karaa ma gobolka awdal bayna deeqi karanahay nasamaroon iyo magacan sameeysanayna deeqi karaa ma awdal adal iyo sheekadan imanka aan wadanayna deeqi karta maxayna deeqi karaa inaan raadsano waxayna deeqi karaa aad iyo aad baan marka horena waxaan uga mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed oo u istaagtay inay magaca Soomaaliyeed iyo magaca gobolka
iyo diinta islaamkaba ilaaliso oo maaragtay meel walba kaga hadlaysa amxaar wuxuu soo wadana waad ogtahay qof walbaana ogyahay laakiin inaga waxay noo yaala waxaan sameeynayno inagu maqani waxa weeyaan inaga maqani waa unity waa midnimo haddaan isu golaan weyno wax wada qaybsan weyno isku filaan weyno inagu wada tashan weyno waxna iska becelin karno waxna ma qabsan karno dadkana wax lama qaybsan karno hadda waad ogtahay Djibouti way jirtaa inaga degna Ethiopia way jirtaa inaga degna Soomaaliland way jirtaa inaga degna Soomaaliya waa Soomaaliya magaalada madaxdii waan joognaa aan joognay meel kasta oo joogno ma isku xidhanahay oo ka war haynaa iminka gobolkeena kama war hayno cid xiriir aan la leeyahay ma jirto nin qaraabo la hadlaa iyo nin maaragtay meel kale ka hadla mooyaane wax maaragtay organization oo inoo dhisan oo ku hirano oo wadankii inooga soo warrama oo xaaladiisii inoo sheega oo wuxuu u baahan yahay inoo soo bandhiga oo inaguna ka qayb qaadano qofka qurbaha jooga sidiisaba waxa ku waajiba isagu dalkii ma joogo waxa ku waajiba inuu ka shaqeeyo wanaaga asxaanka iyo hadduu hayo material support hadduu hayo maaragtay dadkii laakiin waa inuu hayaa wadadu marin lahaa maxaa tahay inaga maqan waa midnimo la'aan marka dadka waxaan ku boorinayaa meel kasta joogaba ninka maanta ku hiranaya magacaan ku sheekaynayno een halka u fadhino een ka mid nahay qofka ka soo jeeda waxaan ku boorinayaa inay dhaqanka aqoon-yahanka maaragtay odayaasha dhalinyarada intuba inay ka shaqeeyaan midnimaduna meel bay ka bilaabantaa wad arkaysaan wadan walba marka taariikhdiisa la soo qaado qof baa u yimid ilaahay u soo dajiyay qofkaas hogaamiye lagu daba feelay inagu marka waxaynu u baahannahay is ogolaashaha adiga inaad ogolaato aniguna ku ogolaado inaan kuu samro haddaad khalad gasho bilaadan baa tahay khaldamaysa inaan kuu samrood ii samirto marka dadka Soomaaliyeed way kala duwan yihiin maanta waxa weeyaan base ba meel walba ka dhisan keenii qabiyo ku jira qabiyadana waxay naga fogeysay wax wada lahaasho ma haysano ambareelaan harsano oo inoo taala ma jirto marka waxaan idinku boorinayaa meel kasta oo joogtaan amxaar waad ogtihiin amxaar dadkeena qayb ka mid u haystaa dhulkeena qayb ka mid u haystaa sidoo ku hayana waad ogtahay waxyaabo badan oo dad taariikhda haya baa jirto xumaana ama amxaaro waxay naga dhaxeeyay ma jirin waqtigaan isku gacan qaadnayna 460kii aday tahay 770kii aday tahay waqtiyaashii ka horeeyay Axmed Gure aday tahay mar walbana gacanta sareysay naga lahayd haddaynu Soomaalina iyo haddaynu Gadabuursina iyo haddaynu maaragtay dadka dhulka deganahay amxaar way noog yahay inaanu meesheena ku leedahay laakiin haddaan la weyno taa oo inuu midnimada meel keeni weyno oo isugu iban weyno waxay noo soconayaan ma jirto waxna ma qabsan karno isaguna inaga faa'iideysanaya maanta aad kula hadlaya aniga waxaan leeyahay kan ma jiro aniga meesha degan aniga meesha le waad joogaysaa waad ka shaqaysanaysaa waan wada shaqaysanayna markuu inaga tagay cali Cabdullaahi inaga tagay aniga maxaarkiina birtay aniga sameynay aniga sida hayba sheegayo kala dhacaysa moogta marka walaalay waxaan idinku boorinayaa meel kasta oo joogtaan fariintayda gaarsiiya midnimadu waxay tahay hubka ugu wanaagsan ee qofku ku dagaalami karo wad arkaysaa marka tuuleero xidhan baa intaas adduun isugu tagay waxay ku dagaalamayaan hadda waa midnimo marka anigu waxaan idinku boorinayaa hadalka waan idinku badiyay aynu qaadana tahay assalaamu calaykum وآد المسلم يا عبد بركات عبد الرحمن أو كل هذا فهمتي من مدو نوحوي واحد كلية أمتسكو كان كرا أو كلية يعني هذه أمتي أي من ما هيستو يعني حوي دول كده ويجيبين كرتا لكن أمتو هذه أي كلات فرار رختهاي وإما كقار أمحارة صورك حيان قارنا إلى ذا أربعون كورشيدنا waxbay noo socod maayo inakum bas u meeraysanayna marka midnimadu waxa weeye waa tiirka ama rukunka kaliya ee ummaday magaranaysa ka asaasanto marka aad ku mahadinaya barkad jazaakum allah khayr waxaan imkana ku soo dhaweynaya insha Allah Ahmed Abdi oo isagu ka hadli doona insha Allah mursal bakuraysan okay mursal ba marka wuxuu ka hadlayaa magaranaysa taariikhda أما دباتة
dhibaatada keeni karto masalan haddii saylac ama luqayo la bixiyo maxaa dhibaato oo ka iman kara bismillaahir rahmaanir rahiim abani wa salaam meel soo joogtaan Allah idinku xafido taleeyo tawfiiqna ilaahayna waafajiyo marka waxaan ka hadlaynaa topic waxaan ka hadlayaa Ethiopia imaashaha imaanaysa wadankeena aafada ay la imanayso aafad maxay keeni kartaa iyo faa'iido marka hadda wax faa'iido keeni kartaa ma jirto waa aafad weyn bay oo raad weyn bay ugu reebi doontaa haddii loo ogolaado ama ay keento haddii ay timaado salahan waxaan u maqalaa 20 kilomitir ayaa la siiyay oo xagga badda ah bariga iyadna 20 kilomitir weeyaan ama jidadkii salahan waa guumeysigaasi wuxuu ka soo bilaabanayaa waa guumeysi cad oo inoo soo socda ilaa geeyga Soomaali ku soo socda dhul hore ku maqan dhulka horeeyada gacanta ay ku dhigtay marka 20 kilomitir daaqsimeedkii baa ku jira daaqsimeedkaasi dhulka iyo ciidankaasi markay soo degaan dhul wuxuu noqonayaa ka caagan Thank you.